حسن وحوها قف فيعن وحوها باري وحوها قف آدو نحريس بدن وحوها قف هوي يا أبو بجعل وما دول قاعدين كانوا معنا والباقينو لبا أما صدق وبحيني أما عروتيني أنو دبك كلا سو عررني إنه هالك كدوجنو كجتجنو هوي مع مديها النقديقة ودن كان وحا أصول دون الأمان إنا كهلنا ودن كان وحا أصول آدم وتقالا إلى إذنك وحا لوغو برتان ودن كان إذن مكير إلى مديها سوقاتان إسدشان إنا لله وإنا إليه راجعون runtii waxaa maanta halka kan aanu ku duugnay inaan yar oo dhalinyaro ah ubaxa maalin walba aynu qof waayayno ayaanu maanta halka kan ku duugnay haddaanu soomaalida degan jaaliyadda degan London haddaanu nahay ee Soomaaliyeed arrintaa iyada runtii arrin aad iyo aad maalin walba markay dhacdo laga murugoonayo baryahanna dhacaysay waxaase runtii xusid mudan arrinta taliyadii waxay kaga duwan tahay waxaan Soomaalida hore looga baran oo ayaan u samayn dhacdaa ayaa runtii ayay tan kaga duwan tahay dhacdadaas waxay tahay maadaama aynu baryahan oo dhanba murugadaas ina haysatada u baxayno maalin walba mid lagu dilayay oo aynu aasayno kana tagayno waxna qabanaynin tan waxay kaga duwan tahay waa markii u horeysay ee hooyo Soomaaliyeed ee wiilkeedu lagu tuhmayo inuu geystay muxuu ahaa ka qayb galay ama qayb ka noqday dilka iyadu intay qaaday oo kaxaysay oo ay booliiska geysay oo gacanta booliiska gelisay waa maalintii ugu horeysay ee ay arrintaas u dhacdo runtii waxaadna ay ku tusaysaa mas'uuliyadda noocaas oo kala iyo geesinimada taas oo kala ah inay runtii ay keeni karto in ay ku wacyi qaataan hooyooyinka kale ee dhibkaas gaaray ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu halka inaga dhamaado oo inaga joogsado laakiin haddii ay dunida baynu ku jirnaa ay sii socoto in dadka Soomaaliyeed waalinta kale ku daydaan oo aan qofka dambiga geystay ama dambiga galay aan la sii deeyo dadka lagu sii dhaxdayn waxay tusaale u noqonaysaa inuusan ka kale u ka waantoobo mar hadduu og yahay in hooyadii iyo aabihii ayan badbaadinay inaynu ka joogsano oo ay darsi inagu noqonaysaa iyadan inaan ka joogsano oo aynu ka waantoowno inaynu carruurta la cararno oo aynu geyno oo dhulkii geyno qof dambi geystay oo walaalkii ama inaadeerkii ama ilmi qof ka soo Soomaaliyeed ila waa walaalkiis uu dhibkaas intuu nabar geysto uu aynaguna gacan ku siino oo dambigiisa caawino waa dhiiri galiyay waxaan aaminsanahay inaynu dhamaanteen haddaynu waalidnahay iyo haddaynu dhalinyaro nahay inaynu arrinta iyada ah inaynu meel uga soo wada jeesano waxa aan arkaa inay waqtigeedii hadda taagan tahay in jaaliyadda odayaasha jaaliyadda caadiga ee Soomaaliyeed UK hooyooyinka waalidiinta dhalinyarada inaynu dhammaan isugu tagno oo aan shirweyne baan ku baaqayaa runtii inaynu qabsano oo aynu isugu keenno waalidiintii ilmahooda waayay iyo waalidiintii ilmahoodu ay dambiga galeen oo nabarka geysteen ilaa waqtigan ay bilaabeen 10 sano u dambeysay inaynu soo ururino xaflad weyn isugu keenno dawladana casuno u yeedhano arrinta tan aynu maanta waajahno oo runta si geesinimo leh haddaynu jaaliyadana aynu isugu tagno arrintan uma dul qaadan karno maalin walba aynu laba ama saddex u baxeynay ama carruurteennii aynu dhibka kala soo cararnay inaynu halkaa ku duugno kaga tagno horta ilaahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariisto sabir iimaan allah naga siiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala saa oofsaday gacan ka gardarna way maartay waxay u geysatay marka xasan hadda waxa la sheegay kullu inuu nin wanaagsan ahaa hooyadiis subxaanahu wa tacaala magaan wareysanay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga maanta aan leeyahay Soomaalida damban inay ku dayataan jeclahay labada waalid wiilka wax dilay iyo gabadhii laga dilay labadiba inay maanta isla ag fadhisteen oo maartay wada hadlayaan waa nimca ilaahay wiilkii markuu yiri waxbaan dilay ay tiri waa biliiskan ku dhiima mas dhib ayadana waa qodob kale oo u baahan ummadda Soomaalida meesha joogta inay ku dayato maxay yeelay maanta waxa isleenayaa waa Soomaali wax isdilahay waa Soomaali Soomaaliya dalkeena dib baan uga soo qararnay inta dib lamaado anaga dhaxdeena waay marka ilaahay waxaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariisto ilaahay waxaan ka rajeynayaa
kudayashadan maanta labadan waalid ay samaysay hooyada wiilkeeda qarinaysa inay qarin haddii wax geysto ayaan ku soo jeedina marka ilaahay maarta subxaana wa tacaala waxaan leeyahay sabar iyo imaan allah naga siiyo ilaahayna waxaan ka baryayaa kuwii isduugta soomaalidu inay naqato kuwii isdila inay sanaqan meeshaan ina community ma lihine community xog inaan yeelanno ayaa muhiim ah anoo ku hadlaya magacayga magaca golaha gurtida iyo magaca golaha dhaqanka iyo aqoon-yahanba anoo ku hadlayo waxaan leeyahay sabar iyo imaan allah naga siiyo maanta waxaan u joognaa wiilkayga xasan ilaa uu naxariisto inta ummad ay ka soo qayb gashin kolleyta waxaa waaye adduunyada waxaa waaye nin dhallinyaro ahaa oo fiican xasan macnaha annaga laftirkeena xismadda annaga aan ka haysan marka ilmaha aamin ay dhasho labadeen waxaan ka haysanaa xismad abti marayna dhahaan moogi wax kale magacayna weligeena manoogu yeerin marka waxaan idin sheegaa maanta iscafinta oo dhacday hooyo xaawo iyo hooyo aamino ay macnaha mar walba muujada ay sheegi jirtay macnaha ay mar walba ordi jirtay macnaha xuquuqul insaanka dhalinyarada hooyooyinka arrimahooda dhinaca Soomaaliya markaan joogno marka maantase waxaa caddaatay aamin in lagu soo dhiirado oo cafi la dhaho gurigeeda loogu imaado oo hooyo xaawona ay dhacdo ay aaminna ay qaadato marka aamin annaga waxyaalo badan aan ka ogeynaa jirto ma aha macnaha iyada ma aysan dhalin cunugan keliya inta maanta wada imaado dhalinyaro intay hooyo ay u tahay aamino maanta waxaan halkaan iskugu imaanay walaalkayga xasan imaan xuseen geeradiisii oo maanta u hooyada gurigiisa rasmiga ah haddaan wax yar idinka sheega xasan qofkuu ahaa xasan wuxuu ahaa qof fiican wuxuu ahaa baari wuxuu ahaa qof aad u naxariis badan wuxuu ahaa qof hooyo iyo aababa jecel walaal jecel ilmahu abtiga u yahay jecel weligiis aan hadal igu soo celinin weligiis hataa markaa ubuca xasan dhaho hee hataa ima dhihin wuxuu dhihi jiray hee abbaayo hami dheeruu lahaa wuxuu lahaa inuu injineer noqduu rabe hamiyuu lahaa markii dambena wuxuu dhihi jiray waddankayga waxaan rabaa inaan wax ka taro oo booliis officer ka noqdo laakiin maanta annaga oo dhan waan jeclaan xasan laakiin ilaahaygii adduunkan keenay ayaa naga cashto oo naga jeclaaday xasan wanaagiisa iyo fiicnaantiisa ma ahan mid aan inta ku soo koobi karo ilaahay waxaan uga baryaa naxariistii janno inuu ilaahay siiyo ilaahay inuu kii uu ka raali yahay noqdo kitaabkiisa midigta loo saaro nabi sallallahu alayhi wasallam la kulansiiyo insha Allah xasan waa ku jecelnaa weligeena wadnahay ma ka baxaysid weligee wadnahay ma ka baxaysid inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun badinti waa ilaahay maanta mataqaana waxaa joognaa qabuurihii ee garden bees waxaan ku soo aasnay xasan imaan xuseen oo ahaa wiilkaygii yaraa oo maalmood mataqaana lagu dilay magaalada London ilaahay naxariistii janna Allah siiyo wuxuu ahaa baarigeygu ahaa alxamdulillah alshukr waxa geesayga taagan waxa waaye kuwii hadda ii soo haray waaye aniga ma lahayn ilaahay yaa lahaa ilaaha ashtay baariyo ii ahaa marka walaalahayga mataqaana Soomaaliyeed iyadoo roob da'ayo iyadoo mataqaana ii sheeg meeshu ay fog tahay oo igala soo qayb galay ilaa iyo mataqaana intuu wiilkayga uu mataqaana ii sheeg Frencheerka ku jiray ila taagnaa waan u mahad celinayaa saan horeyba uu sheegay maantana mataqaana anoo jooga xabaashii wiilkaygii korkeedii waxaan caalamka u sheegayaa iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto wiilkii yaraa oo wiilkayga ilaahay mataqaana sababtiisa uu ka dhigay inaan cafiyey waxaan u cafiyin hore idinku soo sheegay maanta waa idinku celinayaa ilmaha yaryarka ah soo koraayo midiyaha isku haysto oo annaga maalin walba ilmada naga daadinaya inaan tusno inaan awood u leenahay ilma haddana aan dhiiggeena cafin karno inaan tusno inaan mataqaana ayagoo saas noo dilay saas ilmada nooga daadiyey haddana inaan dhiiggeena cafin karno hooyo macaan waxaa idinka baryaaya dhalinyarada Soomaaliyeed hadday North America joogaan haddii mataqaana ii sheeg ay joogaan Ingiriiska ay joogaan hadday Yurub ay joogaan inaad midiyaha naga dhigtaan hooyo macaan midiyaha naga dhiga waddankan waxaa u soo doonay ammaan inaan ku helno waddankan waxaa u soo aadnay mataqaana inaad idinka wax loogu barataan waddankan idinma keen inaad midiya isu qaataan isdishaan ilaahay ha u naxariista xasan wuxuu ahaa baarigeygu ahaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan waxaan ka codsanayaa anigana in la cafiyo
أولاد الصوماليين ميل بيجوكت مع الكوي كوا يدو هاي المها عرورته لنا متقانا صوم إلهي إنه نبض بادي إلهي إذن كيس الرابع داعي سمد وفرنت هاي حس أهل الجنة واي جناسدي سمان تبقى الغف أياك سوق يبقى شيء تاسع متقانا دريم كرتان مساجد كميل كلا استاجا لوا إلهي حمدي سواي مركب متقانا وحاليها متقانا صومالها إسرع صومال إلهي اللي بتجيها سيو إلهي ودن كان دبه اللوجو عليه dhalinyarada waxa uu sheegay qof walba mataqaana wadankeena aan ku qurux badan nahay dawladeena wadanka waa u duceyno naga rabaan meel walba ay joogtaan mar labaad iyo mar saddexaad waxa idin leeyahay mahadsantihiin waxaan rabaa halka inaan ugu mahad celiyo walaashay Xawataako oo wiilkayga lagu sababay gacantiisa ay dhashay oo mataqaana karti isticmaashay oo awood isticmaashay oo wiilkeedii booliiska u dhiibtay iyadana halkaan fursadda qaaliga University TV soo ugu mahad celinaya waxaan kaloo rabaa inaan u faro mataqaana sida loo sheegay laba wiil ayaa maqan xasan dilkiisa ka qayb gashay oo waalidiintooda ay doofiyeen ay macal waalidiintooda waa afiyay waxaan jeclaan lahaa mataqaana sida xaawo ay ku daydaan sida xaawo oo kale inay gacanta ay soo saaraan oo duugta nagala soo qayb galaan xaawo iyo macal familgeedii Xawataako duugta nagala soo qayb galeen ayagana waxaan sheegay haday hooyada codkayga ay soo gaaro in wiilashaadi aniga ay afiyo ka qayb gala dilka wiilkayga afiyo masaamax ayaa iga tahay